Assalaamu calaykum saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Casib Media kusoo dhawaada mar kale iyo qiso cusub oo jaceyl ah. Qisadani ayaa waxa ay dhex martay wiil lagu magacaabo Qaasim iyo gabar lagu magacaabo Quman. Waxa ayna ku bilaabanaysaa sida tan. Saacadu waxay sheegaysay 5tii galabnimo markii ay si kadis ah u kulmeen Quman iyo Qaasim. Waxayna ku kulmeen goob hotel ah oo Qaasim ka shaqayn jiray. Qaasim wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna ka mid ahaa ardayda loogu jecel yahay jaamacadda. Qaasim waa wiil furfuran, waana danyar, balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay. Qaasim gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda, gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa hotelka. Quman marnaba kama filayn inay halkan oo kale ku aragto Qaasim, balse waxay u qushucday siduu iskugu kalsoon yahay una ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. Inkastoo markii hore qalbiga iskala hadashay oo ay istiri Qaasim muu iska qariyo. Qaasim wuxuu ku farxay aragtida Quman, wuxuuna u arkayay in ay tahay fursad dahabi ah, sababtoo ah weli waxa ku jira qalbigiisa muu soo bandhigin iyo ujeedadiisa uu ka doonayo Quman. Maanta Qaasim wuxuu isku dayay inuu u sheego Quman inuu arrin muhiim ah ka leeyahay, balse waxaa jaaniskiisii dhiciseeyay gabar habaryar u ah Quman oo la socotay oo uu meel uu ka mar waayay. Fursadaasina halkaasii ku dayacantay. Quman waa gabar uu Rabbi ku manaystay qurux oo jirkeeda laga ilaaliyay xubin la naco. Waa gabar xishood badan oo hadal gaaban, isla markaana waalidkeed ku soo koriyeen tarbiyad wacan, taasoo dhalisay in ay noqoto gabar had iyo jeer asturan. Waana hablaha dhifka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda. Group uu Qaasim ka mid yahay ayaa waxay abaabuleen in ardayda u baxaan dalxiis, sidaas darteed maamulaha arrintaasi wuu ansixiyay wuuna u ogolaaday dalxiiska. Haddaba 5tii subaxnimo ayuu Qaasim u kacay tabaabusho iyo isdiyaarin uu isku diyaarinayo dalxiis uu ugu magac daray dalxiiskii caashiqa. Waa koox dhalinyaro ah isla markaana ku bahoobay jaamacad ay wada dhiganayeen, waxayna isugu jireen wiilal iyo gabdho. Waa dalxiis si farshaxanimo leh loo soo diyaariyay, waxaana gruubka dalxiisayaasha hogaaminaya mid ka mid ah macallimiintooda. Dhammaan kooxdani aad ayay ugu xiiso qabeen dalxiiska, waxayna muddo sugayeen xilliga la baxayo. Waana maalin uu jawigeeda aad u wacan yahay. Qof kasta oo ka mid ahaa dalxiisayaasha aroor hore buu is diyaariyay, xiisaha iyo xamaasadda ay u hayaan awgeed. Waxaa isna diyaar ahaa gaadiidkii ay raaci lahaayeen. 6:30 daqiiqo subaxnimo ayay ama baxeen, iyaga oo wejigooda ka muuqdo farxad iyo reereen. Intay jidka ku sii jireen, waxay gudaha baska ka bilaabeen hadallo kaftan ah. Dhammaan waa dhalinyaro, waxaa farxadooda u dheereed lebiska quruxda badan oo ay xiran yihiin. Muddo 3 saacadood ah ayay ku qaadatay in ay gaaraan goobtii ay u socdeen. Markay dhammaantood dhulka cagaha soo dhigeen, waxay indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee dhulkani leeyahay iyo neecawda macaan ee ka dhacaysa. Waa goor barqa ah, jawiguna aad u macaan yahay. Kadib ardaydii iyagoo isku qaybiyay dhowr kooxood ayay koox walbaba jiha u dhaqaaqday. Qaasim wuxuu ka mid ahaa ardaydii keentay in dalxiis loo baxo, balse Qaasim maalintani waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale, sababtoo ah waxa maalintani ku cusbaa dareen xiiso geliyay naftiisa. oo markuu baska ka soo degay, indhihiisu waxay si toos ah ugu dhaceen Quman oo intay ardaydu dhulka daawanaysay, isagu wuxuu ku jeeday iyada. Falaaraha cadceedda, neecawda macaan, jawiga xasiloon iyo lebiska qurxoon oo ay Quman wadato iyo farxadda ka muuqata ayaa mar kaliya isugu beegmay. Waxaana halkaa ka dhalatay in Qaasim uu dareemo xiise iyo kalgacal xad dhaaf ah, maadaama ay Quman tahay gabar aad loo ilaaliyo. Waxaa maalintaasna la socotay habaryarteed oo waxaa adkaatay siduu Qaasim ula kulmi lahaa Quman. Wixii gelinkii hore la soo wareegaba waxaa la gaaray duhurkii, isla markaana dalxiisayaashii waxaa lagu wargeliyay in ay dhammaantood iskugu yimaadaan geed weyn oo meesha ku yaalay hoostiisa si loo qadeeyo. Qaasim wuxuu codsaday in uu ka mid noqdo kuwa cuntada qaybinayo, waayo wuxuu weli raadinayaa fursad uu kula hadlo Quman. Qaasim wuxuu cuntadii qaybiyaba wuxuu gaaray bartii ay fadhiday Quman, wuxuuna la kulmay Quman iyo habaryarteed iyo wiil ka mid ah dalxiisayaashii oo gooni u fadhiya. Isaga oo qalbiga ka naxsan ayaa waxaa dhagihiisa ku soo dhacday hadallo ay isweydaarsanayeen saddexdooda oo ahaa habaryar, waxaan kula jeclahay wiilkani in aad aqbasho. Qaasim isagoo ka naxsan wiilkani Quman loo sasabayo ayuu cuntadii u dhigay. Markuu dib ugu laabtay ayay la hadashay Quman oo ku tiri, walaal waxba maad cunin, kaal nala soo fariiso. Qaasim intuu yiri mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay. Markii la qadeeyay ayaa waxaa la bilaabay sheekooyin iyo kaftan goos-goos ah, balse
Qaasim kama uusan qayb gelin. Goor ay casirkii tahay ayaa loo dareeray dhulkii lagu dalxiisayay, balse Qaasim kama uusan qayb gelin. Quman waxay dhalintii ka dhex weyday Qaasim, waxaana loo sheegay in Qaasim uu dhex fadhiyo baska gudihiisa. Quman intay habaryarteed ku tiri waan soo noqonayaa, ayay Qaasim oo keliga ah u timid. Halkaa ha inoo joogto qaybta koowaad ee qisada Qaasim iyo Quman. Daawade, haddii aad qisadani ka heshay, fadlan muuqaalka like saar. Tan intaan ku kulmayna qaybta xigta. Nabadgelyo.